wadnihii lumay sheeko gaaban dhegaysi habboon. Maanta waa maalin ka duwan maalmahan adduunka ku noolaa. Waa maalintan ka baxay gashaantinimo ee noqday marwo. Waa maalintay reerkayga siiyeen wiilkan ku riyoon jiray. Inantu waxay ugu farxad badan tahay markan oo kale. Waxaa taa ka sii farxad badan marka loo guuriyo ninay jeceshahay. Haa, isaga waan jeclaa. Himiladayda ugu weynina waxay ahayd inaan helo. Inaan isaga helaa waxa iila mid ahayd iyadoo la isiiyey janno adduun. Lahaasaa isaga oo helay. Waxaan ahaa ardayad hadda uun gashay fasalkeedii labaad ee dugsiga sare. Waxaan ku riyoon jiray mar uun inaan guursado nin jecel oo i koolkooliya sidaan u jecelahay inaan isaga sidaa ka yeelo. Nin igu kalsoon oon kadeedna ka samaysnayn. Jacaylka uu reerkooda u qabana mid la mid ah u qaba reerkayga. Ka hor guurkayga dad aan hore isku aqoon ayaan ahay. Wuxuu ka mid ahaa dadka qurba joogta ah, halkaasna uu ku dhashay. 5 gu uu iga weynaa. Barashadayadu waxay ka bilaabmatay xagga baraha bulshadu ku xidhiidho. Hadduu socday xidhiidhkaygu muddo sanad ah, wuxuu ii soo bandhigay guur iyo inaanu noqono qoys ballaaran. Waxaan la tashaday hooyaday, waayo waa qofka keliya een kala sheekaysto arrimahayga gaarkay ah. Waxay in badan igu celcelisay, ninka ma iska hubtaa oo ma yahay nin mas'uul ah? haa ayaan ugu warceliyey weydiin kasta oo ay weydiiso, waayo ma raba inaan waayo maadaama aan jeclaaday isaguna i jecel yahay. Wanaag oo dhan ayuu i tusay. Waxaan is oran jiray laylatul qadrigan laguu soo diray muxuu ahaa wanaagsanaa. Waxay hooyo u bandhigtay arrinka guurkayga aabbo kumuu degdegin aqbalidda guurka, waayo waxaan ahaa guri dambays weligeedba la koolkoolin jiray oon kadeed iyo kofintoona arag da ahaan yar balse daryeeli karta gurigeeda. Aabbo wuxuu ugu warceliyey hooyo, waan la kulmi doonaa isaga, anigaana idinku soo warcelin doona. 3 maalmood kadib ayay hawada ku kulmeen. Bariida diiran kadib waxay isla afkarteen inuu dalka yimaado oo ii soo geed fadhiisto. Bil kadib ayuu yimi. Waxaa la galay qabanqaabada guurkayga. Farxad iyo baraare laygu sii ducana nanoo huwi. Gacal iyo xigtaba lagu faraxa guurkayga. Waa gabadh iyo caadadeed. Waxaan noqday marwo u roon oo koolkoolisa, jecel inta ay gabadh ninkeeda jeceshahay, daryeesha oo weliba daadihisa sidii sabi dhashay kal hore. Waxaanu deganayn dalka hooyo sanad buuxa. Alle wuxuuna kala siiyey wiil aad buu u jeclaa wiilkiisa, reerkayga iyo anigana sidoo kale. Waxa dhammaaday intuu u soo qaatay fasaxa oo ay ku eekayd sanadkaas dhammaystiran. Uu noqday oo dalkuu ka yimi ayuu ku noqday. Xidhiirkiisu ma badnayn. Maalinta ka dambaysa ayuu sii yaraalayay. Waxa haleelay ayaan garan waayey. Waxaan isku maalweelin jiray, iska daa shaqadaa ku badane oo idinla soo hadli doonaaye. Balse way ka sii dartay. Maalintii uu tegayay aabbo wuxuu u sheegay 6 bilood kadib inuu ka haysanayo reerkiisa oo uu ku noolaan doonaan dalka dibadiisa. Xiriir xumadiisa markii aan ka yaabay ayaan aabbo u sheegay. Aabbo wuu la xidhiidhay balse dib inuu sheegin. 3 bilood hadday ka soo wareegtay xiriir la'aantiisa wax biil ah kamaanaan helin. Aabbo ayaa markasta naga warhayn jiray oo biil iyo bara aanu seexanaba na siin jiray. Arrintiisu way ka soo royn weyday. wax isbeddel ahna ma yeelato. Maalin maalmaha ka mid ah ayay ila soo xidhiidhay gabadh aanu saaxiibnahay. Bariida diiran kadib waxay igu tidhi, naayaahe hoogto, miyaad ogtahay inuu ninkaagii guursaday oo xalay oo dhan loo ciyaarayay? Anfariir iyo afkalaqaad ayaa igu dhacay. yaa guur ayaan ku celiyey. ilayn markuu kulama go'o. alleenkii aan gacanta ku hayay ayaa iga dhacay. qaylo ayaan miciinsaday sidii geeri la ii soo sheegay. xaafadii oo dhan baa igu soo ururtay. maxaa dhacay bisinka ayay hooyo i tidhi. aabbo oo markaa yara jiifsaday ayaa isna soo booday. hablo aan walaalanahay iyo inamadayadiiba way igu soo urureen. way i dejiyeen. waxay ii sheegeen inaanay wax dhibaato ah aanay jirin. aabbo
wuxuu ii sheegay inaanu ninkani marka horeba tan iyo muraad iga lahayn, waayo hadduu iga leeyahay wuu iga warhayn lahaa, wiilkiisa yarna wuu daryeeli lahaa. magac u yaal ayuu ahaa. goor dambe hadday noqotay ayuu aabbo igu yidhi, anigaa berri la xidhiidhi doona ee aabbo iska seexo. ma hurdaa ii imanaysa. ilmo ayaa indhahayga sida togga uga soo dareerta, mana garanayo si aanu joojiyo. aroornimadii hadday gaadhay, aabbo wuu la hadlay. wuxuu u sheegay in arrinkani jiro. afgobaadsi ayuu ka dhigtay reerkayga. waan ogaanayaa, waan jecelahay, waanan ka warhaynayaa. aabbo muu sii dhegaysan. berri yaanan kaa waayin warqaddeeda iyo inaad u soo dirto, ayuu ku yidhi. ninkanow, waxaad ahaydba mid beryahaaba doonayay inuu ifuro, diyaarna la ahaa warqaddayda. haye, haddaad sidaa go'aansatay, anigaa u soo diraya, ayuu ugu warceliyey. ismuu dhibin, danna igama gelin. 7 maalmood haddii ka soo wareegtay ayuu ii soo diray warqaddaydii. dhib ma laha, balse waxay ii tahay waayo aragnimo iyo inaan ka fiirsado guur dambe. waan la hadlay, waxaan u sheegay inaanu wax dhib ah igu samayn, balse aan ka bartay waayo aragnimo badan iyo inaan ka fiirsado guur dambe. waxaan dib ugu noqday waxbarashadaydii dugsigii sare anigoo hooye ah. aad baanu jeclaa waxbarashadayda, mana doonayn inaan ka hadho qayrkay. qoyskaygii oo dhani way i barbar istaageen, hiil iyo hooba way ila garab istaageen. markaan waxbarashadayda ku maqanahay, hooyadii ayaa ii hayn jirtay ilmahayga. waxaa ka soo wareegtay 2 sano muddadii aan ku jiray dugsiga sare. maantaba waan dhameeyey. farxad iyo damaashaad ayaa cirkaa maraya. isla markiiba aabbo wuxuu igu daray mid ka mid ah jaamacadaha dalka. 4 sano kadib waxaan noqday qof aqoon jaamacadeed leh. reerkayagu aad bay igu hanweynayeen. aabbo shirkad uu lahaa ayaan xisaabiye ka noqday. gelinka hore ayaan shaqada tagaa, ka dambana wiilkayga ayaan daryeelaa. 1 sano kadib markaan noqday gabadh isku filan, ayuu maalin aabbo ii soo bandhigay wiil ka mid ah maamulayaasha shirkadiisa inaan isguursanno. waxaan ka soo fikiro ayaan igu warceliyey. hooyo ayaan la tashaday. hooyo waxay igu tidhi, ninkii hore adigaa doortay, balse ninkan aabbaa kuu dooray inaan taydiyey. wax dhib ah ma filayo inaad kala kulmi doontid. waayahay, ayaan igu warceliyey. aabbo ninkii wuu na sukaayo xidhay. waanu safkaranay. muddo bil gudaheedna waxaa noqday marwadiisa. wiilkaygii aabbo ayuu u noqday. waxaan noqday marwo uu jecel yahay, isna jecel. waa run, wadnahaygii hore wuu lumay, mana soo noqonayo, balse waxaan yeeshay wadno cusub oo ku baxay nalo cusub. waraabkiisuna yahay isku kalsoonaan, daacad, wadajir iyo jacayl. maanin kaarin ninkaygii hore, balse waxaan ka murugooday dhibto igu sameeyey. waxaan maqlay inay gabadhiisii kala tegeen oo aanu reer iyo rugtoona haysan. dhammaad. waad mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad u dhegaysateen sheekadan. si aad u hesho sheekooyin kale iyo waxyaabo kale oo ku xiiso geliya, fadlan la wadaag asxaabtaada. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wixii faallo ah hoos noogu reeb. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. waa walaashiin Faadumo Booni.